Hi, kusoo dhawaada janalkiiga King Birkhay. Maanta waxaan rabaa inaan idiin sharaxo filim soo baxay 2020 laguna magacaabo The Witches daawo oo taxadar. Intaana filimka bilaaban ka hor sida caado noo ahayd waxaa jirta challenge aan wada galno aniga iyo daawadayaasha. Waxaan rabaa inaan kilib yar ku tuso. Kilibkaas haddii aad ku qosasho waxaa waajib kuga ah inaad muuqaalka like saarto sababtoo ah waa challenge. Laakiin haddii aad ku qosli weysid ikhtiyaarka adiga iska dhaaf ama saar. Dati sidoo kale haddii aad ka hesho filmaan sidaan oo kale loo soo koobo fadlan ay loobin inaad channelka subscribe saarato gambalaalkana farotid sidoo kale muuqaalkan aad like saartid mahadsanid. waxaan filimka ku bilaabaynaa Chris Rock isagoo ka sheekeynaya waxyaabo ku saabsan saaxiriinta ku dhex nool dadka laakiin kuwa iskhariya aad bay u adag tahay inaad iska ilaaliso iyaga maadaama saaxiriintu ay noqon karaan kalkaaliyaal deriskaaga ama xitaa macalinkaaga. waxaan ka baranay Chris in sixirolayaasha ay aad u necab yihiin carruurta markastoo ay gabaro isku daydo inay ku siiso nacnac waa inaad iska hubiso inay tahay saaxirad iyo in kale. waxaynu dib ugu soo laabanaynaa 1986 Chris ayaa waxa uu bilaabay inuu sheekadiisa ka sheekeeyo. wuxuu ahaa wiil yar oo ku nool Chicago xilliga jiilaalka ay dhibaato kala kulmeen shil baabuur oo aad u naxdin badan. hooyadiis iyo aabihiis ma aysan xirnayn suunka kursiga waxayna ku nafwaayeen shilkaasi. Chris Rock ayeeyadiis ayaa u timid si ay u soo wado oo ay u geyso gurigeeda una daryeesho. waxa ay geysay qolka hooyadiisa oo waagaa yareed ku noolaan jirtay halkaas oo uu ka helay sawirro iyo xasuusada hooyadii. ayeeyada waxay isaga u diyaarisay saxan ay ka buuxaan hilib digaag laakiin Chris uu iska fadhiyey isagoo aad u murugaysan. ayeeyada waxay isku dayday inay ka farxiso muusikadii hore ayayna u daartay weliba iyadoo qoofka ciyaar samaynaysa laakiin Chris waa mid weli u muuqda mid niyadjabsan. ayeeyada waxay ka rasaynaysaa waano ku saabsan in aanay waxba dhicin sabab la'aan wax walbana ay yihiin wax qoran. waxay isku dayday inay dhex gasho Chris oo ay soo jiidato. hadda waxay u muuqataa inay arrintaasi ku guulaysatay isagoo ugu dambayntii cunay cuntadii wuuna noola caddeynayaa markii ugu horraysay tan iyo markii halkan yimid. mideeda kale aniga waxaan wiilkan ugu yeeri doonaa Chris sababtoo ah kuwa filimka waxay ugu yeeraan Hero Boy. si kastoo ahaateeba ayeeyada waxay Chris u keentay jiir wuxuuna u bixiyey magaca Daisy. waxaan aragnaa Chris oo Daisy tababaraya. Chris ayaa aad iyo aad ugu raaxaysanaya noloshiisa cusub. waxaan hadda aragnaa saaxiradii ugu horraysay oo si caadi ah ugu daawanaysa meel 2 fiid u jirta daaqadda. waxaan aragnaa ayeeyada iyo Chris oo booqanaya dukaanka weyn. ayeeyada ayaa qufacaysa qufac aad iyo aad u daran qufacaas oo muujinaya inay hayso nooc jiro ah. Chris waxa uu saaxiradii kula kulmay dukaanka dhexdiisa waxay siisay nacnac iyadoo weliba gacanteedu ku duuban yahay mas. haddii uusan mas ahaan lahayn waxaa aad u fududaan lahayd inuu cunuga qaato nacnaca laakiin ayeeyadii ayaa soo baxday isla markiiba. saaxiradii waa la waayey. Chris ayaa isku dayay inuu u sheego waxa dhacay balse waxay ka codsatay inuu hadhow u sheego. waxay ku qufacaysaa istiraashadeeda waxaan loo malaynaya inuu dhiig ku jiro. waxay aadeen guriga. ayeeyada ayaa hadda weydiinaysa waxa uu rabay inuu dukaanka ugu dhex sheego. Chris ayaa u sheegay wuxuu arkay. ayeeyaduna waxay u sheegtay inay tahay saaxirad. waxay ka sheekeynaysaa sheeko ku saabsan yaraantoodii. waxay aragtay saaxiibteed oo nanac ka aqbalaysa qof aanay garanayn. way cabsatay oo carartay. waxay aragtay saaxiibteed oo nool isla habeenkaas balse subaxdii dambe ayay bilowday inay isbedesho. waxyar kadibna waxay isku bedeshay digaag. dadka kale ee ku nool tuulada weligood maysan rumaysan. ayeeyada hadda waxay soo gashay qolka armaajooyinka waxayna tustay Chris iyada xasuusaheeda. waxayna u sheegtay inay ka baxayaan guriga oo ay aadi doonaan hotel ayna ku nabadgeli doonaan. waxayna u malaynaysaa in saaxiriintu aysan u dhowaan carruurta hodanka ah oo ay ugaarsadaan carruurta fuqarada ah oo haddii ay xadaan cidna aysan danaynin oo aysan soo raadinayn. intay sii socotay waxay uga warramaysay saaxiradda sare ay soo ururisay saaxiriinta kale iyadana ay ka amar qaataan. waxay soo gaareen hotelka oo aanu ku aragnay boodh bulshada lagu soo dhaweynayo si looga hortago naxariis darrada carruurta. waxay u sii socdaan qolka 766. saaxiriinta ayaana yimid waxyar kadib markay albaabada wiishku xirmeen. saaxiriintii ayaa dalbanaya qolal ay ka degaan hoteelka. maareeyaha hoteelka ayaa u sheegaya inaan xoolaha loo ogolayn hoteelka. ayeeyada ayaa u sheegtay Chris inay khasab tahay inay qufacdo saaxirada darteed. ayeeyada ayaa Chris u sheegaysa siday u egyihiin iyaga waxayna ku tiri afkooda wuxuu ku fidsan yahay ilaa dhagahooda. waxay xirtaan gloves sababtoo ah waxay leeyihiin cidiyo iyo hal suul oo keliya.
duleelka sonkoodana way kala bixin karaan marka ay urinayaan ilmaha. Marka ay seexdeen, bisad ayaa ka soo booday daaqadooda, toos ayayna ugu laabatay qolka jiifka ee ay ku jirto saaxiradda weyn. Bisadu ayaa waxay u sheegaysaa saaxiradda waxay soo aragtay. waxaan u wareegaynaa maalintii xigtay. ayeeyada ayaa hurdada ka soo kacday goor dambe. Chris ayaana mar hore cuntada u dalbay. Chris waxa uu aaday si uu u soo qiimeeyo hoteelka. markii cunug lagu magacaabo Bruno uu hadalka ka soo dhexgalay, wuxuuna u sheegay Chris in naag wanaagsan ay u sheegtay inuu qolka 1225 kula kulmo, iyadoo doonaysa inay siiso 6 xabo oo shukulaato Swiss ah. Bruno hooyadiis ayaa timi oo kaxaysay. Chris waxa uu soo galay qolka ciyaarta. waxa uu ugu dambeyntii helay meel degan oo uu ku tababari karo Daisy, laakiin nalalka ayaa si lama filaan u daarmay. saaxiriintii waxay soo galeen qolka. Chrisna isla markiiba masraxa hoostiisa ayuu ku dhuuntay. saaxiriintiina waxay xirteen albaabka. Anne Hathaway waxay amar ku siisay inay iska bixiyaan kabaha, galoofyada iyo waxay isku qarinayeen. waxay go'aansadeen inaysan isqarinin. hadda waxaan aragnaa muuqaalka dhigaya inaad ilowdo in Anne Hathaway ay ku guulaysatay abaalmarinta Oscar. Little brats playing in the sand, kids for nothing. waxay dishay mid ka mid a saaxiriintii oo su'aal weydiisay iida. kadib waxay u sharxday saaxiriintii sare ee shirka isugu yeedhay si ay ugu sheegto saaxiriinta kale inay ka furtaan magaalo kasta dukaan nacnaca oo ay iibiyaan keliya nacnac tayada ugu sarraysa oo ay ku jirto sun ilmaha u beddelaysa jir isla markiiba ama 30 daqiiqo gudahood. waxay u sheegtay inay haysato lacag fara badan, qolkeedana ay u taalo oo ay ku furan karaan dukaamo. waxay tidhi waxaan hubaa in dukaamada carruurta u beddelaya jir aan la ogaan karin, taasoo ugaarsigeen u samaynaysa xiise badan. hadda waxay qorsheynayaan in sunta ku tijaabiyaan Bruno, cunugii uu Chris waxay ka hor la kulmayay. waxay bilowday inay uriso Chris oo ku jiray masrax hoostiisa. way rogtay masraxii waxayna ku dhowdahay inay hesho Chris, laakiin Bruno ayaa u soo garaacay albaabka. markuu soo galay, qof kasta wuxuu xirtay waxay isku qarinayeen. saaxiradiina waxay xirtay albaabka waxayna ku tiri waa arrin iska caadi ah. Bruno waa mid aad u hunguri weyn, wuuna ku hungoobay shukulaatada oo u soo orday, weliba isagoo ku qaylinaya isii shukulaatada. Bruno markuu shukulaatada cunay wuxuu isku beddelay jir, laakiin xitaa isigoo jiir ah ayaa wuxuu sii wadaa inuu sii weydiisto shukulaatadii. dhoonisana bismillah. waxay u sheegtay saaxiriintii inay isag dilaan oo ay ku istaagaan inta aysan iida baawarkeeda ku dilin, laakiin way la weynayeen tallaabo kasta. halka Chris uu daawanayo dhacdooyinka dhacaya, Daisy wuxuu go'aansaday inuu hadda hadlo oo uu ordo si uu u badbaadiyo nolosha Bruno. isla markiiba saaxiradda weyn waxay soo bixisay Chris, waxay asna ka dhigeen jiir maskiin. sidoo kale waxay raadiyeen maro ay ku dilaan, balse Daisy ayaa ka badbaadiyey. dhammaan saddexdoodiiba waxay ku guulaysteen inay baxsadaan. saaxiradii weyneydna waxay si lama filaana gacmaheeda u gelisay hawamareenada, iyadoo muraaxadda ay ka jarjartay gacmaheeda. waxay galeen jikada waxayna go'aansadeen inay ku dhex dhuuntaan qaabka Remi. waxay gaareen wiishka oo galeen wax yar ka hor intuusan xirmin. labada qof ee wiishka ku jira ma aysan dareemin 3 jiir ee soo galaya wiishka, waxayna ku soo dhex dhuunteen boorsada naagta. waxay ku guulaysteen inay tagaan qolka Chris waxayna la kulmeen ayeeyadii. Chris kuwii kale ayuu baray ayeeyada, waxayna weydiisay sababta Daisy uu hal eray xitaa u dhihi waayey ka hor intaanay waxaan dhicin. Daisy magaciis dhabta waa Mary sida aan baranayno. dayactiraha hoteelka ayaa soo garaacaya gambaalka, wuxuuna u sheegayaa inay dhibaato ku hayaan jiirarka, ayna rabaan in qol kasta ku dhejiyaan dabinada jiirka. waxay dejiyeen qorshe ay ku beddelayaan daawada, taasoo macno samaynaysa tan iyo markii ayada ka shaqayn jirtay NASA dhowr sano uun kadib. qolka weyn ee saaxiriinta wuxuu ku yaalaa hoostooda. waxaa gaar ahaan laga helaa qolka 666 ama 666. siday u caqli badan tahay saaxiradda, waxay sunta ku ridaysaa baaqul weyn oo baraf ah. ayeeyada ayaa hoos u dejisay Chris, wuxuuna u orday gudaha si degdeg ah ayuuna u qabsaday mid ka mid a suntii, laakiin wuxuu ku dhuuntay fadhiga hoostiisa. markii saaxiraddu qolka soo gashay, waxay furtay qaanada halkaas oo lacagta ku haysatay, waxayna ka soo saartay dhowr kun oo kaasha. Chris waxa uu sugayaa inay xirto qaanada oo uu u soo jeesto si uu naftiisa u badbaadsan lahaa. waxa uu soo galay wiishka macmalka ahaa, balse saaxiradii ayaa isla markiiba qabatay. saaxiraddu waxay dareemaysaa inay garanayso ayeeyada, balse ma hubto. gambalaalka albaabka ayaa la soo garaacay, wayna sii daysay jooniyadii si ay u furto albaabka.
maamulihii ayaa yimid oo u keenay xafiis bisada. waxaan dhammaantiin ognahay in saaxirintu aynay jecleen toonta, sidaas darteed fiidku waxay cabaan maraq digir oo keliya. ayeyda ayaa isku dayday inay samayso daawada jirka lidkuka ah, laakiin hal mar way ku guuldareysatay. waxayna u sheegtay inay wax walba isku dayday. Chris waxa uu xaqiijiyay ayeyda inuu jecel yahay inuu noqdo jiir kadib marka uusan aadin iskuulka ay u qolonta 2 sano ee cimriga jiirka. wuxuu ayeydii weydiistay in saaxiibadiisa ay iyaguna la joogi karaan. dabcan way ogolaatay ayeydii. Chris waxa uu helay fikrad cajiib ah, taasoo ah inuu sunta uu soo xaday ku qaso maraqa digirta si saaxir kasta uu isugu bedelo jiir. waxa uu soo galay jikada waxauna ku guulaystay in suntii uu ku qaso maraqii digirtaha. laakiin kale ayeydii waxay go'aansatay inay Bruno u geyso waalidiintiisa, waxayna ugu tagtay qolkooda. ayeydii waxay soo bixisay jiirka, laakiin Bruno wax eraya muusan dhihin maadaama maskaxdiisu ay hoos u dhacday. muuqaalka xiga, ayeyda waxay soo fadhiisatay miis ay ka daawan karto saaxiriinta markay cashaynayaan. dhammaantood waxay bilaabeen inay cabaan maraqa marka laga reebo saaxiradda sare. waxay ku dhawaatay inay dhadhamiso maraqa, laakiin markay dib u eegtay ayeydii ayay dhigtay malqacdeedii iyadoon xitaa dhamin. waxay go'aansatay inay soo istaagto oo u soo dhawaato, iyadoo ugu dambeyntii soo xasuusatay. waxay u sheegtay inay xasuusato sidii ay saaxiibteed ugu dhigtay digaag sannado badan ka hor. intii Anne Hathaway ay wadajiliinka ayaa jiirarkii ku jiray boorsada waxay ka xadayaan furaha. saaxiriintu waxay bilaabeen inay isu bedelaan jiir, taasoo runtii aad u dhibaysay martida kale ee maqaayadda. waxay dadkii bilaabeen argagax markii jiirarku xaggooda u soo carareen, maadaama dadka ay qarqarxayaan oo isku bedelayaan xayawaan. ayeydii ayaa soo baxday iyadoo ay jiirarkii waxay galeen qolkii hurdada si ay u xadaan dhammaan sunta. mid ka mid ayaa ku dhacday sariirta hoosteeda, jiirarkuna hoos bay u dhacayaan si ay u soo qabtaan sunta. sixrooladii sare ayaa soo laabatay iyadoo ayeydii ay weli gudaha ku jirto. Chris ayaa markale la yimid qorshe. nasiib wanaag waxay haystaan waqti badan oo ay ku fuliyaan, iyadoo saaxiraddu ay go'aansatay inay si tartiiba u fiiso gacmaheeda halka ay u socon lahayd. Bruno iyo Daisy ayaa saaxiradii suulka kaga dhejiyay dabanka jirka. kadib Chris ayaa isku soo tuuray dabanka jiirka, weliba asigoo wata suntii oo afka ka furan, wuxuuna afka u geliyey saaxiradii. waxayna isku bedeshay jiir. way sii qaylinaysaa oo waxay ku ersanaysaa iyadoo ah qaabka jiirka ka hor intaanay ayeydu dabin. Chris wuxuu siinayaa ayeyda furaha qasnada lacagta. intay furtay ayay heshay buug ay ka buuxaan magacyo iyo ciwaanada saaxiriinta adduunka ku haray. waxay qorsheynayaan in sixroole kasta ay ka dhigaan jiir iyagoo wata sunta iyo lacagta. ka hor intaan aysan bixin ayeyda waxay bisada ka furtay qafiska oo ay u ogolaatay bannaanka. kadibna bisadii waxay dishay saaxiradii sare. jiirarkii iyo ayeydii way bixeen. Bruno wuxuu isku dayay inuu hooyadii u sheego mar kale wixii dhacay, laakiin run ahaantii hooyadii maysan ahayn mid xayawaanada jecel. sidaas darteed Bruno wuxuu la jeegay Daisy iyo Chris. waxaan dib ugu soo laabanaynaa guriga ayeyda, halkaas oo ay jecel yihiin jiirarka maadaama ay tahay meel ay ku amaan heli karaan kuna baashaali karaan. Chris ayaa weydiiyey ayeyda ilaa intee uu nool yahay jiirka. waxay noo sheegtay ilaa 3 sano. waxay sidoo kale u xaqiijisay inuu noolaan karo xitaa 9 sano maadaama uusan ahayn jiir caadi ah. waa wiil nasiib badan. waxaan markaas aragnaa sawirro ayagoo adduunka oo dhan ku wareegaya iyagoo wata safar sixrool ah. waxaan dib ugu laabanaynaa Chriskii hore oo si dhib ah carruurta u siinaya sun si ay u ugaarsadaan saaxiriinta. waxaan rajaynayaa inaad ka heshay muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay, like nagu dhiirigeli, channelkana subscribe saaro si aad u hesho muuqaalada noocaan oo kale ah. mahadsanid mudane ama marwo.